kulan ay soo qaban qaabiyeen ururka wacyigelinta ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Uganda ayaa waxa ay diiradda ay ku saareen isla markaasina ay ku lafagureen arrimaha tahriibta. Faafahinta warkaasi waxa magaalada Kampala ee xarunta wadanka Uganda inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Yamani. kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen ururka la talinta iyo toosinta ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalkan Uganda ayaa waxa diiradda lagu saaray sidii looga hortagi lahaa tahriibta. waxaana ka soo qaybgalayaashii kulankan oo ay ka mid ahaayeen mas'uuliyiin culimo diin, arday iyo waalidiin ay soo jeediyeen khibradaha ay u leeyihiin tahriibta ama sida ugu habboon ee arrintaas loo xallin karo. iyadoo dhibaatada tahriibta ee aad u saameysay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan da'yarta. وأنا خطبتي هالكاسي لقيتشيدي كميدها يعني رزقها وحال قري ورب سبحانه وتعالى نو قري أنا كورك هو ياشي كوا بقولي الله باتنعش بقولي الله باتنعش وأفر بلود أفر بلود أنا كوجر نورك هو إذا يا رب سبحانه وتعالى قري وإحنا كسو دري ماينو وإحنا كسو سيادي ماينو لكن محل أسكربا رسوبنا هاي نو شيء نو دردار ماي وحول ليه يعني النفط لما ما يسئلها إذا ما يسترت الرزق يدي فتقوا الله واجملوا الطلب إلهي كيابا ربك بقى طلبك هاجاك سدت waxaad ku doonaysaan risqa qaabka aad u doonaysaan iska hagaajiya sala socotaan Uganda waxay kamid tahay meelaha waxbarashada ay u joogaan ardayda Soomaaliyeed meelaha markaas dalalka marka ugu badan marka ay ardaydu ugu badan yihiin marka caqabad ba ardayda soo wajahda sanadkan waxa la oran karaa caqabada ugu weyn ardayda soo wajahda waxay tahay waa tahriib weeyaan arday badan oo wax baranaysay baa tahriibtay tahriibtii ay tahriimeen naftooda ku waayay qaarkood in yar oo kamid ay ku badbaaday in kamid ay xabsiye ay ku jiraan ay markaa ku dhinteen kuwaas oo maqsadkoodii hore ay Soomaaliya uga soo taganaan inay tahriibaan ahayn ay markaa u yimaadeen Uganda waxbarasho markaas barnaamijkaas ayaan waxaan doonaynaa maanta inaan u adeegsano saxaafadda waa lagu haleeyay hooy waa lagu hakraday hooy waa lagu hadlayna hooy hanfi kuma haleeleen hooy haadu kuma daldalateen hooy ma hadgala habeenkii hooy dharaartii ma haybsadee hooy hurdo seexan waayay hooy annaha udka ay galin hooy annaha hadaha u tagin hooy waa halista haribtu hooy waa halaagi doonte hooy waa hoyga naarte hooy waa holc baxaaye hooy waa horar ku cunaaye hooy waa hodan dhulkeenne hooy waa lama huraane hooy awalka qodobka ugu horeeyo wuxuu ku socdaa dhalinyarada ama ardayda waalidiinta waa hadleen odayaasha waa hadleen ganacsatada waa hadleen war waxaan waa naftaada waxa lagu ciyaarayo ma aha wax kale waxa riski galaya waa qalbi waa naftaada naftaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku siiyey xaqna uma lihid inaad lumiso حقنا أمله إن تهلكته تهريبك إلهي سبحانه وتعالى رزقي وكمبلك وسين لها أما الصومال كوسين لها أما يوروب كوسين لها واهل رزقي ياس أما أتهريب أما مالك الأمر مركز تبو واهله لكن هذا دكته دمشنا واكاه ريسا وحكى لو بدنا ولا كل ميسا muddooyinkii u dambeeyayna waxaa dalkan ku soo badanayay arday wax ka barata halkan oo iyagu u tahriibaya wadamada Yurubta iyagoo sii maraya dhul aad u dhib badan oo ay ka mid yihiin saxaraha Afrika iyo badda u dhaxaysa wadamada Yurub iyo Afrika. Maxamed Yamani, TV-ga caalamiga ee Somali Channel, Kampala.